kulanti wacan oo wanaagsan daawada kuna soo dhawaada meel kasta aad ku sugantihiinba barnaamijkeeni xiisaha badnaa taxanaa insha Allah aan ugu talagalnay ee Qur'aanka iyo Soomaaliga barnaamijkan oo aalaaba aanu diirada ku saarno dadka Allah subhanahu wa ta'ala u fudeeyay xifdinta Qur'aanka dadkaasoo iskugu jira da'yar iyo dad baahiyo gaar qaba waxaa marti inoo ah barnaamijkan xilqadan walaalkeen محمد عبد الرحمن سعيد وأخوي جاير وحفتي صغير القرآن الكريم أنتي سنة قري صدق القرآن الكريم كا وحكلوا حساب بدن صغير إنه إنه تفسير القرآن سيدو قالنا مال إسكالي جاي مال نكتير تجويدك علوم القرآن كابدنا يعني هذا اللي يقول لنا إذا كلا بحق محمد وغفرت أن كسر دوية برنامج كسر دو كان محمد برنامج القرآن اليوم الصومالي كبحة تلفيش كعالمية CPA عندو هاي محمد عبد الرحمن سيداني بقى وكسر دوي برنامج كصومالي ذي القرآن أنتي محمد مركي كوبادن كلنا معها مركي لبادن كلنا معها ومركي سدحات مفلية waxa xiisa gaar ah ii sameeyay inaan mar walba kula yeesho waraysi waxa weeye sida Ilaahay kugu fudeeyay Qur'aan haday tafsiirkiisa noqoto tafsiirkiisa haday noqoto iyo haday noqoto tafsiirkiisa محمد يرى سيرو كوبان أو مردا وحديقو كوبتا تاريخ ذا بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد waxaan dhashay 2006 bishii 12aad ayaan ku dhashay magaalada Nairobi marka anigoo laba jir ayaan xaggan imi ilaa inta ka soo weynaanay xaggan joogay quraanka xaggan ka bilaabay barashadiisa intaan dhameynay Hargeysan ilaa 4 sano joogay ugu dhameyntii waxaan joogayo madrasadana aan joogay ilaa 2 sano muddo ah quraanka xifdintiisa iyo tafsiirka iyo musxafka qorisiisa intaas madrasada ku dhameeyay وضعي مسجل بعض خدمات القرآن كحفظي وحان القرآن كحفظي إلا سنة قريب وحانها أبعتون جدا ما شاء الله إمسا السنة يكوقع فينا القرآن كبركة القرآن كبرشدي سحقوقع تي وحان بالله إلا أنيقو لحجر أنيقو برشدي سنة وحان دمية ما حفظينتيسا أنيقو فريتون شرح وحان قونيسا منذ إلا 6 سنة waxaad barato kala sida kale tafsiirka iyadana muddo tafsiirkuna barashadiisu wuxuu u qaatay muddadii aan xifdiga waday ayaan tafsiirkana ku waday casharkan soo qaybayo ayaan isna tafsiirka ku soo qaybiyay marka macnaheedu marka casharkii ka baxdo maanta safxad quraan ka baxday macnaheeduna safxadii quraanka marka ka baxdo safxad quraanka dheeriska ayaa hadana waxa ka baxaysaa isagoo tafsiirka ka baxaya وكم رئيسين شرح فيها تفسير على الصفحة الآخرية أيان كبير شرح أخلين الصفحة ده هذا عشيبة وحي إلهي لهم هالنقا أرقامتي بلسنا تقانا قرآن صدق القرآن هذا لمكا كويديو صفحة البيجة أما آيات مرتبة صوصاتي إذا محاف كودني أمرين مدينة لك وقع المركب هو رئيسة معلنك مع الخاشي أيان قرآن كحفظينتيسا تفسيركيسا ويساقان كدكتي إساقان إيساقوها إنان برتب قرآن كأرقامتيسا إساقا maalintii bulshada suurad buu soo qaybay suuradii markaan soo qaybay warkaynan awoodayay inaan qaybo ayuu markaa shan jiis baan xifdiyay jiray awoodu shan jiis kasta markaad qaybaysid waad ku soo qaybtaa raanta mar aan bariyo hore markaan waraysi kula yeeshay waxaan malaynayaa qabadan taqaban waxay doqorayaan mar aan waraysi kula yeeshay waxaa jirtay madrasada
ما لحين قوب قارة ومحمد المشكلة بس إحنا صار نسوي بخلاصنا قول قارة أو أنا ما مدرسة كل حالة قول كحلم لوس الجوسمي حاسب الجوسمي قول كاس أنا جاك وحالي سمي إلا رمضان تي قبل كديب حالي سمي صورتنا هاي أرضية مدرسة حاكو يربطي marka aniga iyo ardaydii baa isqaadan weynay waxbarashadeedii marka macalinkaa gartay inuu qolka ay sameeyay arkay anigu sameeyay ma la oran karaa qolkan wax lagu sameeyay maadaama ardayda meesha ku badatay in ardayda ku qaydaan oo arday walba yiraahdo maxamed qol baa loo sameeyay maadaama uu safariyarta sareeyo aqoontiisii tafsiirka iyo xifdintiisa iyo inuu gaadho macallin markaa uu ka dhigay qof lagu dayin taas way jirtaa sidaas weeyaan si ardaydu ay u arkaan in qofkii meesha gaalo in ardayda uu ka soconayo uu ka sarreynayo way hadal badan inaan sii gelin dawadayaal gacanta hayda waxa ku jira waa mushaf maxamed qacdiisa ku qoray wax la arki jirteen kitaab mushafa oo matbacad ay soo daabacdo laakiin صدق قرآن هذا قاعد في قرآن waxaan doonayaa oo xiisa gaar ah kitaabku qoray maxamed ee quraan kariimka qacad ku qoray inaan isaga ka weydiiyo inuu aqeeyo kana ana halkan kala socdo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون حديث هذا السورة دي كتبته هي الرقم السورة ده هي الصفحة هذا يقدر آيات waxay ku jirtaa suuratu naxli waxa weeyaan suurada 16 weeyaan tartiibteeda marka laga soo tiriyo xagga sare aayadaasi safxada ku jirtaa waxa weeyaan yaabuduuna min duunillah waa safxada 257 ما شاء الله تبارك الله صفحة السورة آيات أنا في صفحة وي على طول صباح النشاط سحول ما شاء الله ولنوت الماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ما شاء الله تبارك الله دوري الجوال أركان إن بدو حين نرانا قبل واحد فوق في عين واحد لكن واحد صدر حكا ولا أكسن كدي في عنين نريدنا دعوة وقف حمية كان وقت سيء تدبري
ولبا كاجا سيدرنا هنا يروح يتوجه وقرانك في سنة حضر تفسير في قانا وحوي وقف كنتي مضن إنه دعيه الله بدأيه إن دي فكري وأنا البرنامج حيوان وسمينا حوي دي بجرينته تذكر القرآن كالله سبحانه وتعالى يعني أنا كوسيس على البرنامج شو كوسيس وان الله بدأيه إن دي فكري وأنا البرنامج حيوان وسمينا حوي دي بجرينته تذكر القرآن كالله سبحانه وتعالى يعني أنا كوسيس على البرنامج شو كوسيس وان واحد شتاء القرآن مرنا وحليه إن يستاهلوا ووقف عليها مرنا وحليه إلا وضع ووصل عليها ولا اسكو حدا لبدا عايده كوريس marka joogsiga marka ayada qofku dhameeyo dad badan ayna wala naqaano dad yar baa yaqaana oo ufaada in wasliga quraanka lagu akhriyo hadii saas ku tiin wasliga quraan wasliga waxaan bilaaway quraanka markaan itqaanintiisa waday insha Allah maanta quraanka ku akhri karaya ayadaha dhamaadkooda inaan isku xiriiriyo ayada kala bilowgeeda bal dadku soo kala fahmaan waxaynu qaadanayna suuradaha badan ay dadku xiftiisiin dadka oo dhani inuu eegina jisaska hoose أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم بهذا أم هم قوم طاغون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. حسبك ما شاء الله تبارك الله. والحداد تفسير كينو يقول استاذ آياتها قرآن كذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أي بل أم تأمرهم فريسا أحلامهم عقوشهم بهذا أرنتنا يسمينيان أم هم سيقوا قوم طاغون حد قدبي أم سيقولون وحيليهم تقوله نبي أي قرآن كان يسكيري وسمي بل لا يؤمنون الرمين ما يانو إيمان دبه لما يمنيان فليأتوا هلا يمادان بحديث مثله سواء كلا هلا يمادان إن كانوا هديهين صادقين كورونك الشيء بزعمي ما حي شيئا يانا إليهن رسولك القرآن كان سميستي هلا يمادان يهدي وذيان أمس خلقوا ميالا أبوري من غير شيء وحلقان يضو أن وحبت شرين أيا الله أبوري ميا أمس هم أيا الخالقون قوة أبوري أهو يغايس أبوري أما يغا مخلوقات ككلم أبوري أمس خلقوا ما وحي أبورين السماوات كي والأرض أرضا بل لا يوقنون إله الرمين مايان أمس عندهم التذوحة خزائن ربك خزنيسة أي أكتساء وإنا روح تشترينا هذه الدول مع صنطة حي محمد يروا بيهات وشفاء حسنا المستقبل من وقت إن شاء الله تعالى نسلي مستقبلك الشيخ وين أو دينته علمته جودهان أقول له قارهاني قرآن كي يحل حدا أقول له إن شاء الله. marka
markaan ka tagna barashada insha Allah ilaahay kugu guuleeyo markaan ka tagna barashada quraanka tafsiirkiisa tajwiidkiisa kala barata marka laga yimaado quraanka xifdigiisa iyo tafsiirkiisa iyo tajwiidka waxaan inkaan bartaa qiraa'aadka quraanka oo quraanku wuxuu leeyahay qaab badan oo loo akhriyo marka labada kitaab ee asaaska waxa laga baranayay marka ugu horeysa cilmiga oo la yiraahdo matn shaatibiyya iyo matn durrat al-mudiyya labada kitaab ayaan ka xifdigooda aan wadaa xifdigooda marka dhameeyo ayaan kutubta kala soo saaran doonaa insha Allah ma sha Allah Maxamed waxa xifdisan tahay soo horona ku xifdisan dawteer tajwiid kutub جزريها والميت كميدا أبيات قال الناظم رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. ما شاء الله تبارك الله. تأكيد مثلا تعالى هنا كويديو dad badan oo dhalinyaro oo qeyl kaaya yaro sookooriya waaweyn oo quraanka bajada jaanisad badan haya adigu dardaana ku dadbay maxaad oran sidoo kalena بسم الله الرحمن الرحيم marka horeysa naftayda iyo walaalahayba waxaan ugu dardaarmayaa Ilaahay cabsigiisa marka labaad dadku markay dhalinyarada yihiin waxay haysan waqti badan oo ay waxbarashada iyo diinta kaga faa'iideysan karaan barashadeeda gaar ahaan quraanka marka ay markaan rabaan ku jirno iyo dadka iyo fasaxinka iska sii galaya iyo fasaxinka markuu u dheeraaday taas daraadeed waxaan kula talin lahaa ardayda sidoo kale in ay quraanka ay ku dadaalaan barashadiisa waxyaabahan kale ka mashquulinayana ay dib isaga dhigaan intay awoodi karaan qofka haddii quraanka uu ku horeeyo wax laalay wuxuu su'aalo baro uu fuudaan Ilaahay kiisa anigu waxaan inta aan wax ka baranayo ayuun baan isticmaalaa laakiin wixii kale ka sii badan ma isticmaalo waa tahay daawadayaal inta waxaan ku soo afbeeraynaa شاشة عالمية CBS hadal oo ku hadal